بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما تلاده oo ay arbaca soo galayso 7 bisha Oktoobar sanadka 2025 oo ku beegan 15 bisha Rabiicul Thani sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada wada caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamid ah Iran iyo Ruushka ayaa gaaray heshiis ku dhawaad 50 diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ee Sakhoy ay ku iibsanayso Iran arrintan oo durbaba waraac ku abuurtay Netanyahu warbaahinta Israa'iil ayaa caawa faafisay xog sir ah oo la xiriirta wada hadal taagtaagan oo telefoonka ay ku yeesheen Trump iyo Netanyahu iyadoo wada hadalkaasi madaxweynaha Mareykanka si toos ah uu ugu hanjabay ra'iisul wasaaraha Israa'iil haddaba sidee wax u dhaceen sidee wax u jiraan maxay isku hayaan labada nin faahfaahin ayaan idinkaga haynaa amuurtan ururada iska caabinta Falastiiniyiinta oo si cad u sheegaya in maxaabiista Israa'iil iftiinka qorraxda ay arki karaan oo kaliya haddii Israa'iil ciidankeeda ay kala baxdo marayka Gaza Mareykanka iyo Iran oo xiisad hor leh oo dhanka badda laga cabsi qabo inay ka dhex qaraxdo maxay tahay sababtu xog baan idinkaga haynaa sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay wiil 14 saacadood u fadhiyay layli ama waxbarasho shaqo guri ayaa ugu dambeyntii cisbitaal loola cararay haddaba dalkii arintani ka dhacday faahfaahin ayaan idinkaga haynaa dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa caawa waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda Mareykanka iyo Iran iyadoo labada dhinac xiisad la xiriirta barnaamijka nuclearka Iran ay ka dhex aloosan tahay ayaa hadda waxa laga cabsi qabaa xiisad kale oo horseedi karta dagaal inay ka dhex qaraxdo labada dhinac arrintan waxay ku aadan tahay Mareykanka oo doonaya in Iran uu ku adkeeyo cunaqabataynta la saaray haddaba warbixin ay qortay warbaahinta Al-Mayadin ayaa waxaa lagu sheegay in ay muuqdaan calaamado muujinaya in ciidamada badda ee Mareykanku doonayaan inay qabsadaan maraakiibta ganacsiga ee Iran tilaabadan ayaa la sheegay inay qayb ka tahay dadaal Washington ay ku doonayso inay ku xakamayso dhoofinta shidaalka Iran iyo dhaqaalaha waddankaasi in lagu cunaqabateeyo sida laga soo xigtay ila dhanka diblomaasiyadda ee gobolka Iran ayaa iyana ka fakaraysa tilaabooyin argoosi ah waxaana ay ku wargelisay wadamada dariska ee gobolka inay qaadi doonto tilaabooyinkaasi Tehran ayaa waxa la sheegay inay damacsan tahay in haddii maraakiibtida Mareykanka uu qabsado in iyana ay qabsato maraakiibtiisa iyo kuwa kale ee wadamada xulafada la ah khilaafka badeed ee labada dhinac ayaa ah xiisad cusub oo ku soo kordhi karta gacanka Bershiya ama Khaliijka iyo badda Oman halkaasi oo marar badan horay ay uga dhaceen isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada badda ee labada dhinac Mareykanka ayaa horay u sheegay in uu ka fiirsanayo in uu baaro ama joojiyo maraakiibta shidaalka sida ee Iran si uu u adkeeyo cunaqabataynta dhaqaale ee saaran Tehran docda kale Iran ayaa dignin jeedisay waxaana ay sheegtay inay si adag uga jawaabi doonto haddii ay aragto weerar ama in la qabsado hantideeda badda gooshaysa falanqayaasha gobolka ayaa waxay ka degayaan xaaladdan in ay keeni karto iska horimaad weyn oo saameeya maraakiibta caalamiga iyo dhoofinta shidaalka ee ka baxa gobolka gaar ahaan gacanka Hormuz iyo badda Bershiya hagaag intaan ka bixin wararka Iran haatan waxaynu u gudbaynaa war weyn oo saacadihii ugu dambeeyay soo baxay waxa lagu soo waramayaa in diyaaradaha nooca militariga ee xamuulka qaada oo Ruushku uu leeyahay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay imaanayeen Iran waxaana la aaminsan yahay inay sidaan aga military iyadoo dhawaan labada dhinac ay ku dhawaaqeen iskaashi dhanka militariga wararka imika soo baxaya waxa kamid ah suurtagalnimada in Ruushka Iran uu ka iibiyo diyaaradaha nooca loo yaqaan Sakhoy oo ah diyaarado casri ah oo kuwa dagaalka una dhigma diyaaradaha F-35 ee Mareykanka
macluumaad warbaahinta loo dusiyey oo laga helay shirkadda difaaca ee ruushka Rostek ayaa sheegaya in ay dhaceen wadahadalo ruushku Iiraan kaga iibinayo 48 diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ee Sukhoi Su-35. heshiiskana uu noqon karo mid ka mid ah heshiisyada ugu waaweyn ee dhoofinta hubka ee ruushku u galo tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine. sida lagu xusay feelasha laga helay shirkadda Rostek oo ku taariikhaysan 2 Oktoobar oo ay soo xigatay jariiradda Newsweek ayaa sheegtay in heshiisku uu ka kooban yahay barnaamij qiimihiisu yahay $686 milyan oo aga military Iiraan lagu geenayo inta u dhaxaysa 2026 ilaa 2028 iyadoo diyaaradaha lagu qalabayn doono nidaamyada dagaalka elektrooniga ah iyo qalabka loo yaqaan avionics ee badqabka iyo satellitka oo ay farsamayso Rostek. ilaa hadda midna Tehran iyo Moscow toona ma aysan xaqiijin macluumaadkan, balse warbaahinta la xiriirta IRGC ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan ayaa si ballaaran u faafisay faahfaahinta warbixintaas baraha bulshada. arrimahan waxay ku soo aadayaan kadib dagaal 12 maalmood socday oo dhex maray Iiraan iyo Israa'iil oo markii dambe Mareykanku uu ku biiray kadib markii uu duqeeyay goobaha nuclearka ee Iiraan, taasoo muujinaysa baahida degdega ah ee Iiraan u qabto casriyeynta ciidankeeda cirka ee qalabkooda duqoobay. falanqayaashu waxay aaminsan yihiin in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay siin karaan Iiraan awood dheeraad ah oo ay ka cabsi geliso weerarada isla markaana ay difaacdo goobaha istiraatiijiga ah. dadka indha-indheeya arrimaha difaaca ayaa sheegaya in heshiisku ka turjumayo xiriir difaac oo sii xoogaysanaya oo u dhexeeya Moscow iyo Tehran xilli ay labada wadan wajahayaan cunaqabatayn adag oo reer galbeedku saareen, taasoo bedeli karta isu dheelitirka awoodda ee gobolka maadaama Tehran ay cadaadis kala kulanto Mareykanka iyo Israa'iil. sida laga soo xigtay macadka Jamestown Foundation, dhoofinta hubka Ruushka ayaa hoos u dhacday 92% muddadii u dhaxaysay 2021 ilaa 2024, taasoo ka dhigaysa heshiisyadan kuwa muhiim gaar ah u leh Moscow. heshiiskani wuxuu calaamad u yahay wejiga cusub ee iskaashiga istiraatiijiga ah ee u dhexeeya Ruushka iyo Iiraan, maadaama dhowaan Moscow ay ku dhawaaqday dhaqangalka heshiiska iskaashiga istiraatiijiga ah ee dhammaystiran ee la gashay Iiraan. qaramada midoobay ayaa dib u soo rogtay xayiraad hub iyo cunaqabateyn kale oo ka dhan ah Iiraan sababo la xiriira barnaamijkeeda nuclearka kadib talaabo ay qaadeen dalalka Yurub, waxayna Tehran ka digtay inay si adag uga jawaabi doonto. warkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo xalay khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. arrimaha laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ah feelka Iiraan, iyadoo la aaminsan yahay in Netanyahu uu diidan yahay in diyaaradahaasi aysan Iiraan helin. xagga qasa haddii aynu ku horumarno, iyadoo caawa dagaalka uu galay habeenkii sanadkii saddexaad uu caawa bilowday bacdama maanta ay noqotay 2 sano oo buuxda, weli Israa'iil duqeynta halkeeda ayay kasii wadaa, iyadoo docda kalena ay sii socdaan wadahadalada ku aadan sidii dagaalkan lagu soo afjari lahaa. haddaba iyadoo wadahadaladani meel adag ay marayaan ayaa war goordhaweyta waxaa soo saartay guutada Saray al-Qudus, garabka hubaysan ee ururka Jihaadul Islaami, waxaana ay sheegeen in sii deynta maxaabiista Israa'iil ee lagu hayo marayka Gaza suurtagal ay noqon karto oo kaliya haddii la gaaro heshiis isweydaarsi maxaabiista ah oo ay ka mid tahay ballanqaad rasmi ah oo Israa'iil ay kaga baxayso dagaalka ka socda Gaza. bayaan ay soo saartay kooxda ayaa waxaa lagu yiri maxaabiista Israa'iil iftiinka ma arki doonaan ilaa la gaaro heshiis isweydaarsiya oo Israa'iil ku ballan qaadayso inay joojiso dagaalka. Saray al-Qudus sidoo kale waxay xaqiijisay in ayaga dhammaan kooxaha iska caabinta Falastiiniyiintu ay diyaar u yihiin inay sameeyaan dadaal kasta oo suurtagal ah si loo joojiyo dagaalka iyo dhibaatada dadka reer Falastiin. hadaladan ayaa waxay imaanayaan xilli dadaallo dhexdhexaadin ah ay socdaan si loo gaaro heshiis xabad joojin iyo isweydaarsi maxaabiista oo u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin, iyadoo weli dagaalkuna uu socdo. ilo wareedyo kale oo ka tirsan ururka Xamaas ayaa waxay u sheegeen goordhaweyta telefishinka Al Jazeera in maalintii labaad wadahadaladii dadbana ee u dhaxeeyay Xamaas iyo Israa'iil goordhaweyto ay ku soo dhamaadeen magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar. wadahadaladan maalintii labaad galay ayaa diiradda lagu saaray qariiradaha bixitaanka ciidanka Israa'iil iyo jadwalka sii deynta maxaabiista Israa'iil ee lagu hayo Gaza. wafdiga Xamaas ayaa ku baaqay in marxaladda sii deynta maxaabiista Israa'iil lagu xiro marxaladda bixitaanka dhammaystiran ee ciidanka Israa'iil. bayaan ka soo baxay wafdiga ayaa waxaa lagu sheegay in sii deynta maxaabiista
ay noqon karto mid ay la socoto bixitaanka ciidamada sidoo kale xamaas waxay ku adkaysatay baahida loo qabo in la helo damaanad qaad caalami ah oo ku saabsan joojinta dagaalka si dadka falastiiniyiinta dhibka looga dulqaado ciidanka Israa'iilna ay uga baxaan aagaasi dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo goor dhaweyto aqalka cad looga arrimayo Mareykanka dadka saxaafadda kula hadlayay ama dadka wararka fidiya kula hadlayay isagoo hareer fadhiya ra'iisul wasaaraha waddankaasi Canada Mark Carney ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodiyadu meel fiican ay marayaan isla markaasina uu rajaynayo in dagaalka Mareykanka Gaza ka socda la soo afjaro waxa kale oo uu sheegay in arrintu aysan ku ekaan doonin Gaza oo kaliya laakiin ay rajaynayaan in gobolka bariga dhexe oo idil nabad lagu soo dabaalo sida hadalka oo u dhigay way intaan u gudbin sheekada ugu dambeysay barnaamijka waxaan eegaynaa warbaahinta Israa'iil oo caawa qoraysa sheeko la yaab leh wadahadal qadka telefoonka ay ku yeesheen Trump iyo Netanyahu ayaa waxa la sheegayaa in madaxweynaha Mareykanka si ba'an u canaantay ra'iisul wasaaraha Israa'iil arrintaas ayaa waxa la sheegayaa inay ku aadaneed jawaabtii Hamas iyo in Netanyahu uu doonayo inuu majaxaabiyo qorshaha Trump haddaba aynu eegno warkan warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in madaxweyne Donald Trump si adag u canaantay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu xilli ay ka wada hadlayeen qorshaha lagu soo afjarayo dagaalka Gaza iyo soo celinta maxaabiista Israa'iil Barack Ravid oo ah wariyaha arrimaha siyaasadda ee telefishinka Canal 12 ayaa waxa uu sheegay in Trump jimcihii la soo dhaafay oo wacay Netanyahu kadib markii uu helay warbixin sheegaysa jawaabta Hamas ee soo jeedinta Mareykanka la xiriirta isla markaasna ay lahayd calaamado togan oo ogolaanaya wadahadalku inuu socdo ha yeeshee Netanyahu ayaa ku jawaabay si shaki ku jirto isagoo ku yiri Trump Hamas jawaabteeda macno ma leh mana aha buu yiri mid lagu farxo arrinkaas ayaa Trump si weyn uga carooday sida wariyuhu uu leeyahay wuxuuna ku yiri maxaad had iyo jeer u tahay qof qallafsan Ravid ayaa sheegay in Trump uu u muujiyay Netanyahu in waxa socda ay yihiin fulinta qorshihiisa ee aysan ahayn qorshaha Netanyahu isla markaasna Washington hadda hoggaanka ay u hayso marxaladahan xasaasiga ah la taliyaha arrimaha siyaasadda Atalia Somfilfil ayaa isna waxa uu sheegay in uusan ku ekaan hadalku intaas laakiin ay jirtay fariimo cad adag oo markaasi loo diray Netanyahu waxaana lagu yiri 2 saacadood baad haysataa waxaad heli doontaa wax cusub fariin qariirad ama bayaan Trump ayaa Netanyahu si toos ugu yiri adiga iyo kooxdaadu waa inaad idab yeelataan hadda waxaad tihiin qayb ka mid ah qorshahayga anigu laakiin ma ihi mid in ka mid ah kooxdiina falaqayaasha Israa'iil ayaa u arkay hadalkan caraabad muujinaysa in saameyntii Tel Aviv ee hagida arrimaha gobolka ay si yaraanayso xogayihii hore ee difaaca Israa'iil Barak Zeri ayaa waxa uu sheegay in hadallada rajada leh ee Netanyahu ay yihiin isku day oo ku qarinayo cadaadiska Washington wuxuuna sheegay in Netanyahu uu og yahay in geedi socodka socda uusan ahayn mid loo joojinayo ama la joojin karaba siyaas darteedna isku dayayo inuu gudaha Israa'iil suuq uu geliyo in isagu guul uu leeyahay isla markaasna qorshaha Trump uu yahay mid isaga lagala tashanayo Zeri wuxuu yiri Netanyahu wuxuu isku dayayaa inuu shacabka ku qanciyo in heshiisku uu yahay mid wanaagsan oo Trumpna uu ogol yahay halka Trump uu si cad ugu hanjabay in uu siyaasad ahaan u duqeyn doono Netanyahu haddii uu markaasi isku dayo inuu ka hor yimaado Washington dhankiisa Michael Melistin oo ah madaxa qaybta daraasaadka ee Falastiin ee jaamacadda Tel Aviv ayaa waxa uu sheegay in maalmahan dambe ay muuqdaan isbeddello waaweyn oo ku yimid mowqifka Mareykanka isagoo tilmaamay in Trump uu si cad u qaatay mowqifka Qatar taas oo saameyn weyn ku yeelatay wadaxaajoodyada wuxuuna raaciyay falaqeeyaasha Carabtu ayaa hadda waxay isweydiinayaan sababtan isbeddelka degdega ah ku keentay Washington waxaase la hubaa buu yiri in saameynta Qatar ay aad u korortay kadib weerarkii Israa'iil ay ku qaaday iyo xitaa weerarada kale ee warbaahinta Israa'iil ay ka wado gobolka gaar ahaan tan ku wajahan Qatar dhanka amniga marka la eego wargeyska iyo dacoodka xarnood ayaa waxa uu soo xigtay falanqeeyaha militariga Ron Ben Yashi oo sheegaya in adeegyada sirdoonka Israa'iil ay dareemayaan inay jirto fursad dhab ah oo heshiis lagu hirgelin karo balse Hamas ay doonayso damaanad marka hore
inta aan la xallin wax walba dhinaca kale Shira Evron oo ka tirsan macadka Mareykanka Iran ayaa waxa ay sheegtay in mowqifka Hamas uusan isbedelin maadaama weli ay diidan yihiin inay hubka dhigaan ama ay sameeyaan tanaasul wiiqaya awoodooda Ovray Shalah oo ka tirsan macadka amniga qaranka Israa'iil ayaa isna waxa uu sheegay in guusha heshiisku ay ku xirnaan doonto sida Trump ugu adkaysto mowqifkiisa adag ee ka dhanka Netanyahu isagoo intaas ku daray in natiijada go'aanku ay tahay tilaabada uu qaado Trump inuu ku adkaysto go'aamadiisa halkaas marka waxa ka muuqata sida warbaahinta Israa'iil sheegayso Netanyahu qorta in la qabtay laakiin ma heshiis bay ku yihiin arrintan madaacad ba arrintan wax la hubo ma aha laakiin sida muuqata Netanyahu waa la canaantay marka waxaynu ka warsugaynaa waxa weeyaan sida xaaladdu ay socoto waxyaalaha kale muuqda waxa ka mid ah in wadahadaladan maalintii labaad ka socday dalka Masar Hamas mowqif adag ay ku dhigan tahay wali meesha Netanyahu uu leeyahay Hamas hubka dhigaysa shuruudaha aqbalaysa Hamas wax ka duuba sheegaysa madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegayaa in wada xaajuudad ay socdaan marka waxa run ah warka Trump iyo warka Hamas sida khubarada ay sheegayso waa tahay intaana ka bixin isla wararkan wadahadalada ka socda magaalada Sharm el-Sheikh war hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay ayaa waxa uu sheegayaa in madaxa laanta sirdoonka dalka Turkiga ee loo yaqaan MIT Ibrahim Kalin uu ku biiri doono wadahadaladan ka socda magaalada Sharm el-Sheikh ee loo dalxiiska tago sida telefishinka Al Jazeera uu tabiyay waxaana la sheegayaa in berri uu tagi doono halkaasi si qayb uga noqdo wadahadalada waa tahay haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxa walba waynu aragnay waxaan idiin haynaa wiil 14 saacadood oo isku xigta u fadhiyey casharka waxbarashada shaqada guriga ama layliga laakiin ugu dambeyntii cistaa loola cararay xagee ka dhacday arrintan yaa kale waa Shiinaha waa dad waxbarasho jecel baa la yiraahdaa horumarkoodana wuxuu ku salaysan yahay waxbarashada dadku marka ay saaran yihiin tareenka iyo basaska iyo meelaha lagu mashquulo waxyaalaha kale ee mobilka inta badan ardaydu waxay ku mashquulaan inay buug aqriyaan haddaba sheeko la yaab ayaa ka dhacday magaalada la yiraahdo Shangasha wiil ayaa waxa la sheegayaa 14 saacadood oo xiriir ah inuu ku jiray samaynta shaqo guri ee waxbarashada waa 12 jir waxa la leeyahay waliba waalidkiisa meesha joogay warbaahinta Shiinaha ayaa waxay sheegaysaa in wiilkan 8 subaxnimo uu bilaabay wax diyaarinta casharada laga rabo 10kii habeenimo isagoo wax nasasho aan qaadan ayaa markii dambe waxa la sheegay in xaaladiisu ay noqotay mid isbedeshay waxaana uu dareemay xaalad caafimaad darro iyadoo warkuna intaas uu ku darayo madax xanuun inuu dareemay isla markaasna iyo kaboobiye xagga jirkiisa waalidkiis ayaa argagaxay waxayna si degdeg ah ugu qaadeen cisbitaalka dhaqaatiirta ayaa ogaaday in qaybta neefsashada dhibaato ay soo gaartay isla markaasna la sheegayo in wiilkan u baahan yahay caafimaadka dhaqaatiirtu waxay ka digeen xaaladaha caynkan oo kale oo khatar gelin kara nolosha carruurta haddii si degdeg ah aan loo daaweyn waxaana la sheegay arrintaas inay noqotay mid digni laga soo saaray waayo waxbaro oo dadaal laakiin 14 saacadood adoo nasan madaxana kor u qaadan waa arrin halisteeda leh baa la yiri waa hagaag inta ayaan ku soo gabagabeynayaa